Soomaaliya heshiis dunida heshiis la waxay ka bilaabanaysaa maanta ka bilaabatay waa markii ugu horeysay oo aan arko culimada iyadoo tashkiilaadkoodan kala duwan iyo jamaacadkoodan kala duwan oo saan isla fadhiya oo bayaan isla soo saaraya oo sidaan u kaftamaya oo sidaan u wada hadlaya waa markii koobaad oo aniga aan arko way Allahu akbar tooda rumaysanaya diintooda oo ku dhagan qabiilna ah oo diin qabiilka Ilaahay dadka dhaliyay wadaniyiin ah dalkoodana jecel mid walbana ka kale inuu ku xadgudbin oo qabiilku meel buu leeyahay meeshiisa inuu soo dhaafin oo halkiisa lagu hayo diintuna waa diintaas de qofkii dawladii iyo noloshii iyo dhammaan wixii oo dhan hagaysa laakiin waa in aan lagu xadgudbin oo waa meesha hadda la leeyahay dawladdu ha ka ilaalisee uusan intuu qof iska imaado meesha rabo uusan u jeedin wadanka dalka in la jeclaysiiyaan u baahanahay dawladda in dadka la jeclaysiiyaan u baahanahay waxaan u baahanahay in aan dadkeenu ogaadno oo la baro dawlad la'aan inaan dal jiraynin dalla inuusan jirayn dawlad la'aan diinna inaan la haysan karin la habeyn karin la noolaan karin dawlad iyo dal la'aan sidaa darteed waa in dawladnimada iyo dalka dadka la jeclaysiiyo oo ay tarbiyada gashay masaajidka inay gasho waxaan rabaa inaan halkan ka ballan qaado shirka maadaama madaxweynuhu furay waxa la wixii ka soo baxay ee xukuumadda iyo dawladda ku aadanaa waxa la wixii madaxweynuhu u ballan qaaday maadaama aan anigu laanta fulinta aan hogaamiyo waxaan ballan qaadaynaa inaan fulinayno